Telegram waxaan ku sameeyay casharadii aan ku dhigayay boqolkiiba 30 oo qiimo dhimisa marka iyaduna ha u daymala'anina nagala soo xiriira contactida aan leenahay casharkii oo aan idin macneeyo waa tan ee la socda marka leedahay qofka ma soomantahay horta inaad barato waaye are you fasting ma soomantahay qofka sida la dhahayaa are you fasting qofka haduu sooman yahay isaguna wuxuu ku jawaabayaa I am fasting waa soomanahay marka waxa jirto wax laga rabo qofka inuu ka dhoorsado ama ka fogaado inta uu sooman yahay marka qofka waxa leedahay you must abstain from abstain from ka dhoorsasho ka fogaansho waa marka waxaad ka fogaanayso oo aad iska ilaalinayso waa you must abstain from wana ka fogaataa ka dhoorsataa iska ilaalisa inta macluumaadka ku macnaayaan you must abstain from wana ka fogaataa ka dhoorsataa iska ilaalisa eating cunitaanka drinking cabitaanka sexual intercourse isu galmoodka jinsiga ah ee labada qof oo isqaba ay isu galmoonayaan marka ee laba idadiga ah marka waa sexual intercourse waka and all waxa kale ka fogaanaysaa evil deeds acmaasha xun oo dhan acmaasha ama amalada evilka ah ee xun ee sharta ah oo kale kuwaasna ka fogaanaysaa ee aad u xun farma waxa ka fogaanaysaa dawn waa beriga markuu ereygu u qoran yahay DAWN waa dawn waa beri dawn w dhawaaq ma laha dhawl oo ugu dhawaaqaysa dawn waa beri oo u dhiganta sunrise qorrax soo baxa to ilaa dusk oo u dhiganta maqribka marka qorraxda u dhacayso erey kalena waa sunset qorrax dhaca sidee loo yiraahdaa soonka waa waajib saaran qaangaar kasta oo muslim ah waxaad leedahay fasting is an obligation. Fasting is an obligation upon dul saaran. Fasting soonku is an obligation waa waajib. An obligation waa waajib. An obligation waa waajib. Upon dul saaran ama ku waajib ah every Muslim adult qaangaar kastoo muslim ah. Wakaa ku celiya qof walba in ka mid ah dhihi karaa muxuu yahay soon oo qof ajnabi ku yiri fasting is an obligation waa waajib upon dul saaran wuxuu waajib upon ku dul yahay every Muslim adult qaangaar kasta oo muslim ah qof soo muslimeeyo oo soonka wali aad u baraxo dhigtaa you must make an intention wana la timaadaa niyo to fast aad ku soonto aan ku celina jumladaasi you must make an intention to fast wana samaysataa niyo aad ku soonto an intention niyo loo baahan yahay you must make an intention wana la timaadaa niyo to fast aad ku soonto you must make an intention to fast waa inaad la timaadaa niyo aad ku soonto see qof ugu sheegaysa haddana xilliga aanu soonno muslimiinteenaan we fast waxaan soonnaa from pre-dawn waa beriga ka hor intuu fajrka dhalan ka hor beri ka hor waaye dawnna waa beri waa pre-dawn waa beriga ka hor to dusk ilaa maqribka wakaa waxaad leedahay we fast waxaan soonnaa from pre-dawn min waa beriga ka hor to dusk ilaa maqribka wake up for ukac wake up for suhoor suhoor ukac ana suhoor waa iska erey carabi oo guud oo diini ah badana aan la heli karin erey si saxa ugu dhigma luqadda Englishka laakiin suhoor waxa weeye pre-dawn meal waa cunto la qaato waa beriga ka hor pre-dawn meal ereyda qaar marka sooda u daan kartaa adigoona tarjumin waxaad dhihi kartaa marka wake up for suhoor ukac suhoorta qof aad dhihi kartaa please wake up for suhoor suhoor ukac marka dadka kicinaysa waxaad dhihi kartaa wake up kaca wake up dadka hala kaco dadka hurdayaan moogtahay waxaa leedahay wake up kaca for suhoor ukaca let's go nakeen aan baxnee to perform saan usoo gudano usoo oogno salaada nakeen aan baxnee to perform saan usoo oogano usoo gudano to perform saan usoo oogno usoo gudano salaah oo dhiganta prayer badana ereyada oo diiniga ah sida ayagu u dhigmaan uma dhigmi karaan kooxda kale ayaga ay isticmaalaan marka salaah
muslimiinta kaliya iskale waa salaad waajib ah marka waxa waa prayer daan qaadano waa iska qaadan karnaa laakiin markasta prayer ma keeni kareen ragga runtii aqoon-yahanada muslimiintu aad u waaweyn markasta waxay dhahaan salaah sideeda u dhaafa maadaama prayer ay u dhigmi karin prayer iyada nafteeda waa un dukasho ama salaadii weeye laakiin salaah un bay doorbidaan aqoon-yahanada muslimiinta ah oo ay dadkana ku booriyaan in ereyga la baro xataa qofka ajnabiga ah salaah lagu baro bisha ramadaan waxaa aada loogu baahan yahay recitation of the Quran akhrinta quraanka recitation akhriska ama akhrinta of the Quran ee quraanka ficil ahaan iyada marka ereyga hadda magaciyaan qaatay laakiin ficilkeedu waxa weeye recite the Quran quraanka akhri recite the Quran quraanka akhri waxaa loo baahan yahay recitation of the Quran waay akhriska quraanka recitation of the Quran kaasi marka waa magacii akhriska quraanka laftigiisa waay laakiin marka qof amar siinayso waxaa leedahay please recite the Quran quraanka akhri recite akhri the Quran quraanka akhri wagaag waa dareenteen waa erey u baahantiin inta laga gaarayo casharka xiga oo isaga laftigiisa xiisiisa gaarka noo lahaan doona hadduu alla idmo waxaa idin leeyahay ramadaanka ilaahay naga aqbalo wabilaahi tawfiiq